gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa maamul u magacaabay deegaanada Sabiib iyo Mareerey. Gudoomiyaha degmada Afgoye Cabdinaasir Caalim ayaa warbaahinta u akhriyay warqadda ka soo baxday gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. 19 warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose kuna socoto Mudane Cusmaan Cali Birka ogeysiinteedina ay leeyihiin mas'uuliyiinta hoos ku qoran dhammaan laamaha amniga gudoomiyaha degmada Afgoye wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo dib u heshiisiinta madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ujeedadeeduna ay ahayd magacaabid gudoomiyaha deegaanka Mareerey ee degmada Afgoye markuu arkay baahida loo qabo buuxinta jagada gudoomiyaha deegaanka Mareerey ee degmada Afgoye markuu arkay soo jeedinta gudoomiyaha degmada Afgoye odayaasha dhaqanka bulshada qaybaheeda kala duwan ee deegaanka Mareerey markuu arkay taariikh nololeedka waaya aragnimada kartida iyo aqoonta uu u leeyahay mudanaha xilka loo magacaabay markuu garowsaday in loo baahan yahay deegaanka Mareerey in uu helo maamul baahida shacabka ka turjuma markuu ku qancay in uu hanan karo xilka loo magacaabay waxa uu go'aansaday in loo magacaabo gudoomiyaha deegaanka Mareerey ee degmada Afgoye Mudane Cusmaan Cali Birka. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Najax ayaa ugu baaqay guud ahaan bulshada gobolka gaar ahaan deegaanada dhawaan ay ciidanka la wareegeen inay barbar istaagaan amniga iyo midda nololeed ee shacabka meelaha ku nool taasoo noo fududeysay in deegaanka Mareerey iyo deegaanka Sabiib iyo Aanoole intaba in loo magacaabo maanta maamul si iftiinka dawladnimada loo gaarsiiyo meel walba oo lagu xoreeyo cadawgan Soomaaliyeed jiritaanka dadka dalka iyo diinta intaba ka soo horjeeda waxaan rabaa maamulka degmada iyo hay'adaha amnigaba inay la shaqeeyaan maamulkan cusub oo halka hadda loo magacaabay si ay waajibaadkooda u gutaan annaga ka maamul ahaan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose anoo ka wakiila golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaan idin ballan qaadaynaa in adeega dawliga la gaarsiiyo meel walba oo gobolkan ka mid ah adeega iyo midnimada shacabkana aan annaga hormuud ka noqono si dalkan iyo dadkanba loo badbaadiyo Shabeellaha Hoose oo la xoreeyo waxay ka dhigan tahay Soomaaliya oo dhan la xoreeyay. Cabdi Fataax Cali Cumar Tawakal wararka telefishinka caalamiga Koonfur Galbeed Soomaaliya Shabeellaha Hoose.